وهجاك صاحبيال warbixintan waxaan ku eegi doonaa sheeko maalmahan aad looga hadalhayay baraha bulshada oo ku saabsan doonta ay isticmaalaan dadka ku nool magaalada Baardheere kadib buundadii Baardheere oo gabi ahaanba burburtay muddo kadib markii ay burburtay oo meesha ay ka baxday buundadii isku xiri jirtay magaalada Baardheere ee gobolka Gado ayaa iskaashato ganacsato ah oo deegaanka waxa ay sameeyeen doon u kala gudubta labada dhinac ee magaalada doontan ayaa qorsheedu u yimid markii sanadkii hore bartamihiisii ay fatahaado ka dhaceen deegaankaas ay saameyn xoogan ay ku yeelatay buundada doontan ayaa isaga talaabtay labada dhinac ee ay ka kooban tahay magaalada Baardheere oo wajiga Jubba bartamaheeda mara iyadoo u kala safrisa adeegyada kala duwan sida xoolaha gaadiidka iyo dadkuba toddobaadkan horaantiisii ayaana la hirgeliyay in markii ugu horeysay doontaas oo muddo shaqadeedu ay socotay ay ka shaqo bilowdo Baardheere dadka deegaanka ayaana durba aad u soo dhaweeyay ama ay aad u soo jeedatay fikradan iyadoo ay xalisay caqabad ay muddo dheer ay wajahayeen oo ay ka haysatay dhanka isu socodka qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka ayaa keenay fikradan doontan lagu sameeyo kuwaas oo howlgeliyay sidii loo heli lahaa cid sameysay iyo sidoo kale ololaha qarashka ku bixi doona doontan Buule Cabdi oo ka mid ah raggii hawsha horkacayay oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in markii fikradu ay ku dhalatay ay talageliyeen oo kadibna qalabkeedii iyo sidoo kale miisaankeedii ay jaangooyeen una raadiyeen injineer sameeya ardaydeeni oo aan gudbi karin waayeelkii iyo sidoo kale danihii ganacsiga oo aan isu soci karin marka aan aragnay ayaan dooranay markaas in aan fikirkeena iyo sidoo kale dhaqaalaheena aan ku badbaadino ummadeena ayuu yiri ganacsade Aadan Buule Cabdi doontan ayaa sameynteedu waxay qaadatay ku dhawaad 3 bilood xilli markii hore qorshuhu ahaa in lagu soo dhameystiro muddo hal bil sabab la xiriirta cimilada kulul ee magaalada Baardheere qalabka doontan ay ka sameysan tahay ayaa lagu sheegay in ay yihiin biro xadiid ah iyo sidoo kale alwaax iyo tubooyin casri ah injineer Cabduqaadir Maxamed Ibrahim oo ah injineerkii horkacayay mashruucan sameynta doontan oo isna BBC-da ay la hadashay ayaa sheegay in dhammaan qalabka ay ka sameysan tahay uu yahay kuwa gudaha wadanka laga heli karo qalabkan waa wax wadanka laga heli karo oo qaar Muqdisho ayaan ka soo gadanay qaar Baardheere ayaan ka helnay wixii ayaan wabiga agtiisa isugu keenay oo halkaas aan ku shaqo bilownay aniga iyo kooxdayada ayuu injineer Cabduqaadir u sheegay xilli uu la hadlayay BBC-da doontu waa wada bir aan dhaxaleysanaynin wabigana aan waxba dhibaato ah u geysanaynin sababta aan birta ugu dhignay waa in ay cimri dheer tahay hadii alwaax iyo sidoo kale plastic laga dhigo waxa suuragal ah in ay jajabaan ayuu BBC-da u sheegay injineerkii horkacayay qorshaha farsamadeeda waa injineer Cabduqaadir doontan ayaa ah 20 mitir oo dherer iyo sidoo kale 8 mitir oo ballac ah halka qaadkeeduna uu yahay 20 tan ama 20 kun oo kiilo doontan ayaa injineer Cabduqaadir nooceedu ku sheegay in la yiraahdo Ubuntu qarashka ku baxay sameynta doontan ayaa ganacsatada qorsheeda lahaa waxay sheegeen in uu yahay lacag gaaraysa $100,000 doontan ayaana shaqo bilowday xilli deegaanka durba aad loogu soo dhaweeyay dadkuna ay u arkayeen fikrad loo baahnaa oo deegaanka ganacsigiisa iyo soo socodkiisa ku soo kordhay wax badan wabiga Jubba ee dhex mara magaalada Baardheere ayaa ballac ahaan isu jira ku dhawaad 150 mitir taas oo tan markii buundadii kaliga ahayd ee goobtaasi ku taalay ay burburtay ahaa caqabad weyn oo soo wajahday dadka deegaanka Aadan Buule oo ganacsatadii qorshaha lahaa kamid ah ayaa sheegay in durbaba la amaanay iyaguna markii hore si loo amaano ay ku tijaabiyeen hantidooda injineer Cabduqaadir Maxamed Ibrahim ayaa laga keenay sameynta doontan magaalada Muqdisho injineerka ayaa laga keenay magaalada Muqdisho si uu sameeyo doontan xilligaas oo isaga iyo sidoo kale shaqaalihiisa markii ay xaaladdu qiimeeyeen ay shaqada ka bilaabeen degmada Baardheere ee gobolka Gado injineer Cabduqaadir ayaa hore u sameeyay doon hore oo dalxiis iyo ganacsi ah oo taala xeebta Liido Cabduqaadir ayaa ka soo jeeda sida uu BBC-da u sheegay qoys farsamo yaqaan ah isaguna uu xirfadan farsamo oo ku shaqeysan jiray balse uu soo bartay cilmiga beeraha markii hawsha sameynta aanu bilownay waxa nagala qabay fikrad ah in dad waalan aan nahay anagu waan isku kalsooneen waxaase mahadcelin mudan nimankii ganacsatada ahaa ee geesiyaasha ahaa ee qarashkooda geliyay dadkii deegaankuna markii ay arkeen in wixii ay hirgeleen waa lagu wada farxay aad baana noola soo dhaweeyay oo noola duceeyay ayuu Cabduqaadir u sheegay BBC-da magaalada Baardheere ayaa dadkii bishii November ku dhuftay magaalada
uu maro webiga Jubba ay si gaar ah u saameeyeen iyada xilliga oo ay barakaceen dad aad u fara badan oo ku nool magaalada. Soomaaliya ayaa wajahaysa isbedel cimilo oo keenay daadad xad dhaaf ah iyo abaaro daba dheeraaday oo siyaabo kala duwan u saameeyay nolosha bulshada Soomaaliyeed.